السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله waxaan doonayaa baarak allahu fiikum sida uu nabiga uga hadlay sala allahu calayhi wasalam saaxiibtinimada waalidka lala saaxiibayo nabiga sala allahu calayhi wasalam ninbaa u yimid wuxuu ku yidhi man axaqu nnaasa bixusni suxba nabiga wuxuu ku yidhi ummag saddex jeer buu nabiga wuxuu ku yidhi ninkii wuu weydiiyey saddex jeer nabigana saddex jeer buu wuxuu ku yidhi hooyada markii afraad wuxuu ku yidhi aabbaha markii shanaad wuxuu ku yidhi cidda u dhow hooyada cid kastoo waa hooyada qaraab ahaan u dhowna u asxaan samee oo saaxiibtinimadooda wanaaji haddana wuxuu ku yidhi cid kastoo waa aabaha u dhow u asxaan samee oo markaa u wanaaji cid kastoo aabaha ay qaraaba yihiin qaraabo kasta oo aabaha u dhow hagaaji oo la saaxiib oo saaxiibtinimadooda wanaaji haddaba walaal baarak allahu fiikum bal maanta wadciga aan ku jirno u fiirsada maanta dad waxaad arkaysaa waalidkooda qaraabadoodii intaba diidaya ka cararaya nacaya walaal waxaad isweydiisaa marka dardaaranka uu nabigana siiyey sala allahu calayhi wasalam heerkeen ka taagannahay halka aan ka joogno bal waaye sawirta kullamaa aad waalidka xiriirintiisa iyo markaa u asxaan samaynta waalidka iyo famliga iyo qaraabada markaa isaga u dhow kullamoo adiga uu khayrka kaa fogay wey khayr iyo ajir weyn baa kaa fog barako badan oo adduunyada ilaahay uu ku siin lahaa baa kaa fog saa darteeda baarak allahu fiikum waalidkaaga u asxaan samee oo la saaxiib intaad cid kana la saaxiibi lahayd ayagaas inaad la saaxiibto mudan ayagaa weliba saaxiibtinimadooda inaa hagaajisa mudan cid kasta iyo saaxiib kasta ayaga ka hormari qof kasta waalidkaaga ka hormari hooyada ka hormari aabaha ka hormari qaraabada hooyada iyo aabaha ee u dhowna ka hormari oo la saaxiib cid kasta waayo saaxiibkaaga waad wanaajinaysaa waa la ogyahay waad ilaalinaysaa waad casuumaysaa waalidkaaga mudan baarak allahu fiikum ayaga la saaxiib waqtigaaga inta ugu badan ayaga si caawi u gargaar u hiili oo markaa u asxaan samee baarak allahu fiikum halkaasaan kaga baxaya